بسم الله محكمة وينو فرنتها ninkan waa xasan cadde oo laptopkii qaraxa ku raraa gacantiisa ku wada ninkaas saddexaad cabdiwali wuxuu markaan weydiinay wuxuu noogu sheegay inuu yahay nin la shaqada ku cusub oo la shaqaaleyn rabo maxkamaddu waxaan ka codsanayaa gabagabadii anoo ku raacsan saaxiibkay in maxamed cabdi cilmi apologies laga siiyo inta xaq darrada oo ku xiriray maxkamaddu xorriyadiisa soo celiso wax laga sheegay ma lahan eeda labaad iyo midda saddexaadna waxba lagama sheegin waana la caddayn kari waayay eeda al-shabaab ahna ayadana sidoo kaleeto waa la caddayn kari waayay sidaas darteed waxaan codsanaynaa in xorriyadiisa loo soo celiyo mudana gudoomiye waxaan codsanayaa in muwaadinkaas la sii daayo haddaynan jirin dembi kalaantood oo loo heesto mana jiro dembi kale oo loo heesto oo lagu soo eedeeyey waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor waxay tala meel markaa maamulku hagaagaya mujtamacu siduu rabiyo markii la hela garsoor maxkamada ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen maxkamada ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan ugu magac darnay weerarkii hawada ee D3 xariijin 159 iyo hufnaanta garsoorka ciidamada qalabka sida Soomaaliya labadii bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii duulimaadka diyaaradda Daalo D3 xariijin 159 uu qof naftii qarriba isku dhex miidaamiyay isagoo doonayay inuu hawada sare ku xasuuqo 79 qof oo rakaab ah duuliyaha diyaaradda iyo 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ka mid ah hase yeeshee qaraxaasi fashilmay uma noqon sidii ay doonayeen naftii qarribaha iyo shabakadii soo abaabushay ee yoolkoodu ahaa inay xasuuqaan rakaabka diyaaradda islamarkaana uu xirmo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho saldhigga booliska garoonka diyaaradaha aadan cadde waxay maalinkaasi markii ay diyaaradda qaraxa ka dhexdhacay soo gudbiyeen warbixin ku saabsan sida ay wax u dhaceen kadib warbixintaasi ayaa kooxda sida gaarka u tababaran ee booliska Soomaalida Chad iyo khuburo caawinaysay bilaabeen baaritaan ku aadan arrintan waxayna ka bilowday baarista inay tiro koobaan rakaabkii diyaaradda saarnaa oo ahaa 80 qofood taasoo ka duushay 11:35 AM garoonka Muqdisho iyadoo duulimaadkeedu ahaa Muqdisho Jabuuti hase yeeshee markay hawada gashay diyaaraddu qiyaasii 3,000 ilaa 5,000 oo fiid ayna marayso hawada degmada Balcad ayaa qarax ka dhacay diyaaradda qaraxaasi awgiis waxaa diyaaradda gooni uga dhacay naftiyahalagihii watay qaraxa taasoo sababtay inay diyaaraddu dib ugu soo noqoto garoonkii ay ka duushay qiyaastii saacaddu markay ahayd 5:45 daqiiqo kooxda jida ee booliska iyo khubaradii caawinaysay waxay baaris ku sameeyeen goobtii uu qaraxa diyaaraddu ka bilowday kooxdu waxay halkaasi ka heshay hara burbur laptop haraaga googo'a boorsada laptopka iyo qaybo ka mid a hilib lafo bini aadam iyo dheecaan DNA shabakadii soo abaabushay weerarkii hawada ee Daalo waxay ka tirsanayeen ugus waxayna isugu jireen ganacsato shaqaale garoon iyo shakhsiyaad kale waxayna shabakadan qorsheynayaan weerarkan inay sameeyaan 1 Febraayo oo ay baaqatay diyaaradda Turkish Airlines ayna doonayeen inay saaraan ismiidaamyaha iyo qaraxa sida ku cad muuqaalka CCTV-ga ee garoonka cabdiwali oo ah shakhsiga labaad ee agaasimay weerarka hawada ee Daalo waxa uu soo galiyay laptop uu qarax ka buuxo garoonka isagoo isku dayay jihooyin dhowr ah inuu ka soo galo garoonka waxaana la socda cabdiwali nin kale oo lagu magacaabo xasan cadde kaasoo aan ka mid ahayn shaqaalaha garoonka laakiin uu cabdiwali dadka u baray inuu ka mid yahay shaqaalaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada
kowdii bishii labaad 2016 cabbaara 19 iyo 11 daqiiqo ayaa cabdiweli iyo xasan cadde oo wada socda ay soo wada galeen gudaha airportiga. xasan caddena waxa uu gacantiisa ku waday laabtoob, balse intaysan soo gaarin albaabka ay ka galaan shaqaalaha Faafoori waxaa laabtoobka gacantiisa kula wareegay cabdiweli si ay ugu suuro gasho inuu u gudbiyo laabtoobka qaraxa xambaarsan gudaha airportiga. waxayna wada yimaadeen albaabka, hase yeeshee waa loo diiday inay wada galaan gudaha. cabdiweli ayaa waxa uu la soo baxay aqoonsigiisa shaqaalenimo, waxaana uu tusay waardiyihii albaabka joogay si loogu ogolaado in isagiyo saaxiibkiisa xasan cadde ay gudaha wada galaan, waase laga diiday. cabdiweli wuxuu la soo baxay mobile nooca loo yaqaano Nokia oo kalarkiisu buluug yahay, kuna hadlay daqiiqado. mobilekaasi oo ahaa midka gaarka u ah ee uu ku fulinayo howlihiisa. asxaabtiisa ay shabakada wadayihiinna kala xiriirayay, sidoo kalena si gaara ugu hagayay howlaha qaraxan. cabdiweli iyo saaxiibkiis xasan cadde marka ay u suurtageli weysay inay albaabka ka galaan waa ay ka soo laabteen, waxayna u dhaqaaqeen dhinaca albaabka loo yaqaano Amazon Gate, laakiin ma suuro gelin. waxaa ka soo gala oo keliya cabdiweli oo xambaarsan laabtoobka qaraxa. markii uu ka soo galay albaabka Amazon Gate, cabdiweli waxa uu soo maray wadada runway-ga kuna yimid albaabka ay ka baxaan rakaabka diyaaradda raacaya, isagoo u soo gudbay gudaha terminaalka iyo maqaayadda cabitaanka iyo cuntada fudud ay ka cunaan rakaabka diyaaradda sugaya inta laga gaarayo waqtiga duulista. cabdiweli gudaha waxaa ku sugaya isagoo laabtoob haya saaxiibkiis xasan cadde oo uu kaga soo tegay bannaanka isagoo sugayay inuu soo galo soona maro hubinta baarista dadka caadiga ah, maadaama uusan wadan laabtoob iyo wax laga shakin karo toona. saacaddu markay ahayd 19:41 daqiiqo ayaa xasan cadde waxa uu soo hor istaagay hubinta baarista dadka caadiga ah ee scan mashiinka loo yaqaano, wuxuuna u soo gudbay kuraasta ay fariistaan rakaabka baxaya oo ay ku ballansanaayeen cabdiweli. markii ay isku yimaadeen waxay si wada jira ugu baxeen bannaanka adhabaha diyaaradda, kana baxeen albaabka ay ka baxaan rakaabka fuulaya diyaaradda, iyagoo u leexday dhanka ujaadka ku soo degto, kuna maqnaa ilaa 45 daqiiqo. kadibna waxay ku soo laabteen gudaha howlka kuraasta ay fadhiistaan dadka rakaabka ee diyaaradda sugaya, iyagoo u gudbay dhanka maqaayadda cabitaanka iyo cuntada fudud ee gudaha garoonka. waxayna halkaasi ku ballansanaayeen nafti qaribe cabdulaahi cabdisalaam boorle si loogu wareejiyo laabtoobka qaraxa. cabdiweli oo markii hore hayay laabtoobka waxa uu ku wareejiyey xasan cadde inta uu uga imaanayo nafti halligaha. daqiiqado ka hor inta aysan is arkin waxaa koontaroolka hubinta soo maray nafti halliga cabdulaahi cabdisalaam boorle oo wata boorso laabtoob oo faaruq ah, isagoo soo maray baaritaanka lagu hubiyo dadka. sida aad ka arkaysaan muuqaalkanna waxa uu watay boorso ay ku dhex jiraan caday iyo waxyaabo la mida oo uu la galay gudaha garoonka. kadibna wuxuu u soo gudbay gudaha howlka ay fadhiistaan rakaabka diyaaradda raacaya, waana uu fadhiistay. cabdiweli waxa uu ka soo baxay gudaha maqaayadda, wuxuuna soo aaday nafti halligaha oo fadhiya kuraasta ay fadhiistaan rakaabka diyaaradda raaca. kadibna inta u yeeray ayay israaceen, waxaana horeeyey cabdiweli. nafti halligahana waa uu daba socday markay gudaha galeen. cabdiweli waxa uu nafti halligaha u tilmaamay xasan cadde oo haya laabtoobkii si loogu wareejiyo. nafti halligaha waxa uu tagay xasan cadde, waxaana uu kala wareegay laabtoobkii qaraxa, wuxuuna ku xaraysay boorsadii faaruq ahayd. cabdiweli iyo xasan caddena waa isi soo raaceen, waxayna ka soo baxeen gudaha terminaalka. daqiiqada kadib waxaa baaqatay diyaaraddii Turkish Airways oo maalintaasi la sugaya inay raacaan rakaab uu ka mid yahay nafti halliga cabdulaahi cabdisalaam boorle. cabdiweli maxamuud macow oo ahaa madaxa amniga ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada markuu ogaaday inay baaqatay diyaaraddii Turkiga ee maalinkaasi oo ahayd taariikhdu 1 bishii 2016 wuxuu fariin qoraaleed u diray agaasimaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada, waxayna u qornayd fariintu sidan: waxaan helay xog in Turkish Air heshay xog diyaaradeed in la qarxinayo ayna qarisay, markaana ay rabto inay ku saamiso kuweena Jabuutina ay kala wareegta rakaabka. waa xasaasi, only for your report. cabdiweli isagoo rabo inuu marin habaabiyo agaasimaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ayuu wuxuu qoray fariin qoraaleedkaasi, hase yeeshee ma aysan noqon fariintaasi mid gaarta agaasimaha.
naftiihaliga cabdulaahi cabdisalaan boorle markii ogaadeen inay baaqatay diyaaraddii waa uu soo baxay waxaana uu soo istaagay bannaanka waxaa ka hor yimid nin tagsiila ah oo ka shaqeeya bannaanka garoonka diyaaradaha wuxuu la hadlay naftiihaliga cabdulaahi cabdisalaan boorle isagoo doonaya inuu qaado maadaama ay baaqatay diyaaraddii uu raaci lahaa hase yeeshee oday boorle waa uu ka diiday inuu raaco laakiin waxaa la hadlay dad aan la arkayn oo taagnaa meel iyaga u muuqata kadibna sidaas ayuu oday boorle ku aqbalay inuu raaco tagsiilihii markii hore uu ka diiday inuu raaco taasoo u muuqatay in la amray inuu aqbalo inuu raaco gaarigaasi maalin kadib marka ay diyaaraddu baaqatay oo ahayd 2 bishii labaad ee sanadkan 2016 waxaa sidii maalintii koowaad oo kale garoonka u soo galay cabdiweli maxamuud macow iyo saaxiibkiis xasan cadde oo wata laabtoobkii hase yeeshee markaan cabdiweli iyo saaxiibkiis waxay u gudbeen albaabka loo yaqaano miro gate ama albaabka jaadka waana ay ka soo galeen waxayna soo mareen dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan iyagoo ka soo galay albaabka ay ka baxaan rakaabka diyaaradda raacaya cabdiweli waxa uu ku haray gudaha xasan caddana waxa uu soo baxay dibadda daqiiqado kadib waxaa dib ugu soo noqday gudaha garoonka xasan cadde uu la socdo sargaal boolis oo ka tirsan saldhigga aeroboorka xasan cadde waxa uu soo maray kontaroolka hubinta laabtoobkii uu watana waxa uu soo mariyey 2 iskaan ee mashiinada ah ee wax lagu baaro iyadoo shaqaalaha mashiinadaasna aysan qaban qaraxyadaasi la dhex marsiiyey sababo la xiriira feejignaan la'aan iyo taxadar xumo iyadoo ay jirto khibrad la'aan la xiriirta aqoontooda qaraxyada oo aan gaarsiisnayn heer ay qabtaan qarax dhagartan oo kale loo diyaariyey laabtoobka qaraxa uu ku xirnaa waxyaabaha ku jiray waxaa ka mid ahaa sida uu caddaynayo mashiinkii la dhex marsiiyey bateri aan hayn kii loogu talagalay oo 9v ah qarxiyo baaruud ama detonator market waxa loo yaqaano fiilada isku xiraysa qarxiyaha iyo bateriga godka cd-ga oo ay ka muuqato baaruud ama waxa loo yaqaano color organic explosive xasan cadde markii laabtoobka sidaas uu qaraxu ugu xiran yahay la soo gudbay wuxuu yimid maqaayadda cabitaanka iyo cuntada fudud oo ku sugaya cabdiweli markii ay isu yimaadeen 2 xidiglihii waa uu ka haray cabdiweli iyo xasan caddana waxay wada galeen gudaha maqaayadda daqiiqado kadib waxaa soo galay maqaayadda naftiihalige cabdulaahi cabdisalaan boorle oo sidii 1 bishii labaad 2016 oo kale u soo wada maray baarista isagoo wata boorso laabtoob faaruq ah oo aan ku jirin wax laabtoob ah gacantana ku wata ul baakoorah isagoo soo maray mashiinada wax lagu baaro waxaana uu furay xitaa suunkii u xirnaa markii uu dhex maraya mashiinka wax lagu baaro kadibna waxa uu suunkii u xurtay sida macawista loogu xirto isagoo aan dhex marin meelaha loogu talagalay surwaalka in la dhex marsiiyo suunka wuxuuna soo aaday halka ay ku wada ballansanaayeen cabdiweli maxamuud macow waxayna isaga hor yimaadeen maqaayadda cabitaanka iyo cunnada fudud iyagoo halkaasi ugu dhiibay ismiidaamiya cabdulaahi cabdisalaan boorle laabtoobkii qarax ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Maxamed Sheekh ayaa iiga waramay siday ugu guuleysteen baarista arintaasi booliska Soomaaliyeed mar haddii xaalad dhacdo marka hore booliis ahaan goobtii shilka ka dhaca la tagaa waxaa la qiimeeyaa sida xaaladda ay u dhacday marka isla markiina waxaa la helaa warbixin hordhaca oo ku saabsan in fal dhacay kadib waxaa loo gudbaa qaabkii kale oo ahaa falkan dhacay muxuu noqon karaa ma fal argagixisa ma fal loo adeegsaday wax qarxa ma fal kala yani marka runtii hoggaanka baarista dambiyada ee booliiska oo ay gacan siinayaan muxuu ahaa dhalinyarada loo soo tababaray habka cusub ee loo kontrolo markii meel shil ka dhaco shilka noocu raba ha ahaado markuu shil dhaco wuxuu hadda booliiska Soomaaliyeed uu ku guuleystay in loo tababaro oo qalabkii lagu qaadayay marag muujinta meesha falkaas ka dhacay soo ururintiisa oo aad runtii aad garan kartid yani muddo badan dib aan ku qaban jirnay waa hadii xaalad dhacdo meesha waa lagu yaacaa dad badan imaado marka tan waxaan u maamulnay si aad iyo aad u qurux badan oo daalo korkeed ayuu falka ka dhacay marag muujintii laga soo qaaday oo haday ahaan leed ma arkano dhiig iyo waxyaalaha bani aadanka ka go'ay iyo haday ahaan leed waxyaala qarax loo adeegsado u eg oo ah yani wax kan loo yaqaano maadooyinka la isku keenay iyo laptop oo burburay marka arimahaas kulay waxa waay kiiskii si fiican loo baaray haddana maxkamadu jira
cabdulaahi xaashi cabdi carays oo hadda baxsad ka ah hay-adaha ammaanka waa gacanta koowaad ee weerarkii hawada daalo waa howlfuliyaha ugus ee muqdisho waxa uu ku gamban jiray inuu yahay ganacsado isagoo u qaabilsanaa al-shabaab qaadista lacagaha baadda ay ka qaadaan ganacsatada iyo shirkadaha waxa uu sidoo kale ahaa maalgeliyaha weerarada argagixisanimo ay ka sameeyaan muqdisho iyo diyaarinta gawaarida qaraxyada ay u isticmaalaan ugus waxa uu ahaa sidoo kale maskaxdii ka dambaysay in la qarxiyo diyaaradda daalo si loo xiro garoonka diyaaradaha muqdisho islamarkaana go'doon loo geliyo caasimadda muqdisho halkan waa afariirdoodka xamarweyne waa bartii ay ku taallay carwada carays ee lagu diyaarin jiray qaraxyada wiilashanna waxay ahaayeen gacanyarayaashii carays oo u gedi jiray carwada waxayna hadda ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee muqdisho laakiin kama aysan warhayn dhagarta carays halkan ku maleegayo waxayna mareen habka cadaaladda waxay carwadan qaban jirtay shaqooyin ay ka mid tahay in lagu dhex diyaariyo habeenkii qaraxyada inay dhigtaan bastooladleyda ugus hubkooda in lagu siiyo lacagaha dhagarqabayaasha ugus iyo in lagu aruuriyo lacagta baadda ay ugus qaataan carays oo hadda baxsad ku maqan waxaa laga soo qaaday gurigiisa naqshadan taasoo ah tii lagu qorsheeyey weerarkii hawada ee diyaaradda daalo D3 xariijin 159 waxaa ka muuqata kursiga uu ku fadhiisanayo diyaaradda ismiidaamiye cabdulaahi cabdisalaam boorle si ay u suurto gasho inuu gaaro qaraxa haanta shidaalka diyaaradda taasoo sababaysa inay gebi ahaanba burburto diyaaradda saacaddu markay ahayd 18:35 taariikhduna ahayd 2 bishii labaad waxaa hogaanka baarista dembiyada CID la keenay meydka nin lagu sheegay inuu diyaaradda ka dhacay markay qaraxday oo qaar jirkiisa ka mid ah ay maqan yihiin oo ay soo heleen dad reer miyi ah oo ku nool nawaaxiga degmada Balcad ayna keeneen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaa deganaa kooxda jid iyo khubaradoodu markii ay tirakoob ku sameeyeen rakaabkii saarnaa diyaaradda waxay ogaadeen in qofka maqan ee diyaaradda ka dhacay uu yahay nafti qarribe boorle kooxdu waxay baaris u dirtay nooca otaabsiyaha loo yaqaano haraaga meydka iyo qaybo ka mid ah hilibkiisa oo laga helay kursigii qaraxu ka bilowday korkiisa si loo ogaado sababta qaraxa baaristii haraagii meydka dhakhtarka wuxuu soo cadeeyey inuu ahaa nin sitay qarax explosive kadib markii jirkiisa laga helay baaruud ayna islahaadeen dheecaankii laga dulqaaday kursigii uu ku fadhiyey naftii qarribe cabdulaahi cabdisalaam boorle waxa uu watay baasaboor Soomaaliya nambarkiisuna uu yahay B-eber 4913-795 wuxuuna soo baxay baasaboorkan 26 bishii 2016 iyadoo loogu sameeyay habka online-ka waxaana u dalbay baasaboorkaasi samayntiisa nin ganacsi ku haysta Muqdisho waxaana dalabkaas baasaboorkaasi u keenay isaguna nin kale oo ka ganacsada gaadiidka kaas oo isagu lagu magacaabo Cali Nuur Salaad iyadoo ninkan ganacsadaha baabuur dhowr ah oo hore looga gaday ay qarxeen waxaana u fudeeyay samaynta baasaboorkaasi nin ka tirsan shaqaalaha hogaanka socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya iyadoona ay ku baxday samaynta baasaboorkaasi lacag dhan $250 jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dhinacooda sida baasaboorkaasi xafiiska socdaalka uga baxay isagoona taliyuu cadeeyay inay shuruucda ku bixiyaan baasaboorka sarkaal ka tirsan immigrationka ayaa ii yimid wuxuu taliyow ninkan abtigay waaye waa jiran yahay cudurkan kansarka uu qabaa ma imaan karo mana keeni karo maxaad ka leedahay waxaan u maraynayaa taas ani mas-uuliyaddan ka qaatay halkaas tag soo qor inuu abtigaa yahay mas-uul adiga ah ka tahay wuu soo qoray
sanaada sawirkiis ku soo dhajiyaan adiga tahay qofkan warkaan qoray uu ku dhajiyay haddii oo hadda magaalada tagay waa la siinahay sama laakiin ninkaas xaqiiq la'aan wax lagu siin ninkii marka sarkaalka ahay hadduu shaab yahay waa shaab maxkamadda ku cadeyn doonto hadduu tuug laalush qaatay oo laalush la siiyana asay ku cadaanay ninkaas marka meel leedahay magaalada ka baraha nin baa qaaqaray ninkii in la saaminna way fiican tahay in la saaminana ka sii fiican wada mar la saamini doono laakiin dadaalkaas sameeyna maxay tahay Cabdullaahi Gaafur Maxamuud alayhi raada anaa ka wakiil abtagay waay sawirkaada ku dhaji waa ku dhajisay wax alla wixii ka arka mas'uulka wixii ka yimid mas'uulka markaas loo ku jira markaas saaminada ku ranayo haddii kale hadduu tagi lahay meesha baasaboorada qof Soomaaliya waa inuu basbaar raba wala siinahay samaan marka aniga hay'adda nabadgelyada waxaan leeyahay ninkan wali waxa dhiman in wax la soo sheego jenaraal Gaafo waxa uu dhinaca kale sheegay inay adkeeyeen habka bixinta baasaboorada isla markaana ay dhici karto mararka qaarkood duruufo qasbaya in online lagu bixiyo baasaboorada sabab la xiriira muwaadiniin Soomaaliyeed oo caalamka ku kala firirsan online ka waa joojinay laakiin wax la joojin kara ma hadda dhibaatada ugu weyn oo bini'aadamka ayaa jirto marsiisa online waxa loo keenay waxa waaye qof dhiban hadda haddii oo shil dhaco oo qofka ma galo oo takhtar yiraahdo qofkan lama daawo kara la qaado maxaa sameynaysaa maxaa sameyn kartaa waxa lama sameyn karo meel u dhinta miya waa in loo helaa habka loo siyaabo sabarka online la yiraahdaa ko hadda barbarinka uu taagan markaan joojinay 37 dhalinyaro oo Filibiin wax ku barato oo jaamacadaha ku jiro oo qaarkood ay yihiin semesterka 6 iyo 7 ayaa baasaboorada ka dhixeen haddayna baasaboor loo cusboonaysiin ama baasaboor aysanina waxa waaye jaamacaddu ninkuu bardareynaya marka online sideeda waxa loogu talagalay in dhibaato looga fujiyo qof looguma talagelin in wax barnaamijta noqdo barnaamijta maan barnaamijta waa ka joojinay tii kale ah dadka dhibanna sida loo raadinaya jidka hore ka duwan nafti haligaha tigidhkiisa waxaa laga soo jaray Angola kaash ahaan socodkiisuna wuxuu ahaa Muqdisho Istanbul Mumbai Hindiya waxaa 3 maalin kadib qaraxay diyaaradda Daalo 5tii bishii 2016 saacadu markay ahayd 9:30 subaxnimo qarax lagu dhajiyay gaari uu waday Xasan Maxamed Axmed Xasan Cadde baabuurkaasi waxaa lahaa Cabdiweli Maxamuud Macow qaraxaasoo sababay inuu geeriyoodo Xasan Cadde taasoo noqotay mid lagu doonayay in kiiska la xiriira diyaaradda D359 lagu soo afjaro oo aan la helin xog xiriira qaraxa ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska Soomaaliyeed ee jid ayaa iyaguna waxa ay wax weyn ka bedeleen amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kooxda sida gaarka u tababaran ee booliska ee jid ayaa iyaguna inta aan la gaarin mishiinada wax lagu baaro waxa ay barxadda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku baaraan dhammaan qalabka la saarayo diyaaradaha ka duulaya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde taasoo ka mid ah xaqiijinta amniga taliye ku-xigeenka kooxda jid ee booliska ee iyagu hadda ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa isna iga waramay isbedelada ay ka sameeyeen gudaha garoonka dhinaca amniga sida haddii aan kaaga waramo booliska uga sameeyay horumarka waa si okay ah heer sare ah sideeda banaan booliisku meel walba uu joogo wuxuu leeyahay shaqo wada si joogto ah la isula qabto haddana aad arkaysid oo inta ka shaqeynayo ama aan ku howlanahay baaritaankan wixii baasajeeriyo oo dhamo baxaya anigu si toos ah ayay waxa ay la xiriiraya taliyaha saldhiga iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wixii dhan oo meeshan wax dhinho caqabada hadii aan aragno ama baag aan la kulanno ama wax kale aan la kulanno waxa isla markaas waxa go'aan ka gaaraya degdeg ah oo toos ula xiriiraya taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed anaguna shaqadayna heegan ayaan u nahay markasta meeshan airportkan shaqadeeda waxay u socotaa booliiska oo uga howlgala ama macnaha u qabta si habsami leh shacabka waa arkaysaa macnaha maaragtay maanta oo dhammaan ku soo dhex jirtay sidaas ala awgeed waad ka warrami kartaa adiga naftirkaaga Afrika booliiska dhibka ay hayaan iyo sida ay u kala gudbinayaan shacabka sida ay macnaha maaragtay ugu heelanka ay yihiin sidaas awgeed waxaan ku sheegayaa ama macnaha maaragtay ku farayaa in booliisku dhabarka oo u xirtay
in uu shacabkiisa ka samata bixiyo wixii dhibaato ah sidaas cala awgeed booliisku wuxuu hayaa hawl muhiim ah taliyaha ciidanka booliiskana uu u leeyahay heegan halkan waa hoyga uu ku noolaa Cabdiweli Macow waana barta uu ku diyaarin jiray dhagarta garoonka isagoo gurigan ay ugu imaan jireen horjoogayaal ugu soo oo la diyaariyay mu'aamarada qaraxa waxayna gurigan qoyska Cabdiweli ka guureen markii isaga la qabtay sabab la xiriira xaafadii oo dhan oo ka shakisay gabi ahaanba qoyska loona arkay inay dhibaato ku yihiin amniga dadka deegaanka taariikhdu markay ahayd 13 bishan waxay kooxda booliska ee Jad u tageen baaritaan hoggaanka baarista dambiyada Niza halkaas oo ay ku xirnaayeen maxaabiista loo haystay kiiska garoonka diyaaradaha Aadan Caddo waxayna halkaasi kula kulmeen kooxda Jad Cabdiweli iyagoona halkaasi uu Cabdiweli u cadeeyay inay wada socdeen isagii Xasan Cadde kadib markii Xasan Cadde uu sheegay inuu doonayay in laabtoob uu dhibo wiil adeer yahay oo jaamacad ka dhigta dalka Hindiya oo rabo in laabtoobkaasi loo dhiibo nin la yiraahdo Cabdullaahi Cabdisalaam Boorle kaasoo uu sheegay inuu san aqoon u lahayn asay shows bare Xasan Cadde sidoo kale Cabdiweli waxa uu u sheegtay kooxda Jad ee booliska in Xasan Cadde isaga ay saaxiibo ahaayeen waliba Xasan Cadde oo ku noolaa guriga Cabdiweli inta badan waxaase baarista boolisku ay cadeynaysaa inaysan waxba ka jirin cunugu dhalay Xasan Cadde oo laabtoob loo dhiibayay sidaasna ay xaqiijiyeen qoyskii Xasan Cadde oo booliska Soomaaliyeed ay qoraal ka sameeyeen kooxda booliska Jad waxay gabagabadii baaristooda ka soo saareen natiijadan kadib markii ay si dhab ah u baareen kooxda Jad tixraaceen dhaqdhaqaaqa kaamirada CCTV ee ku xiran garoonka hareerihiisa arkeen qaabka qaraxa diyaaradda uga dhaxdhacay xog ururin badanna sameeyeen ay soo baxday in Cabdullaahi Xaashi Carays iyo Cabdiweli Maxamuud Macow ay ahaayeen kuwa abaabulay qaraxa diyaaradda daaladii 3 xariijin 159 maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajadeeda koowaad ayaa la hor keenay eedeysanayaashan oo tiradoodu ay dhantahay 14 iyo eedeysana maqana ah oo gal dacwadeedkiisa isna la keenay maxkamadda taariikhdu markay ahayd 19 bishii afraad ee sanadkan waxayna maxkamaddu maalinkaasi dhageystay kiiska eedeysanayaashan iyadoo ugu dambeyntiina gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ku dhawaaqay in maxkamaddu xiran tahay markale kiiskan la dhageysan doono kadibna eedeysanayaasha waxaa loo wareejiyay xabsiga dhexe Muqdisho 22 bishii shanaad ayaa haddana mar kale la dhageystay kiiska eedeysanayaasha iyadoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay gudbiyeen eedda loo haystay mid walba oo ka mid ah eedeysanayaashan waxaana maalinkaasi uu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ka hor aqriyay maxkamadda eedda loo haystay kooxdan iyadoo sidoo kalena eedeysanayaasha mid loo weydiiyay ku lug lahaanshooda arrintan waxaa sidoo kale maxkamadda la hor keenay marqaatiyaal ka marag furayay kiiskan iyadoo sidoo kalena la dhageystay dooda abukaatayaashii difaacayay eedeysanayaasha oo iyaguna halkaasi ka jeediyay doodooda maxkamaddu waxaa ka codsanaya gabagabadii anoo ku raacsan saaxiibkay in Maxamed Cabdi Cilmi apologies laga siiyo inta xaq darrada oo ku xiriray maxkamadda xorriyadiisa soo celisay wax laga sheegay ma lahan eedda labaad iyo midda saddexaadna waxba lagama sheegin waana la cadeyn kari waayay eedda al-shabaab ahna ayadana sidoo kaleeto waa la cadeyn kari waayay sidaas darteed waxaan codsanaynaa in xorriyadiisa loo soo celiyo mudana gudoomiye waxaan codsanayaa in muwaadinkaas la sii daayo haddaynan jirin dembi kale antooda loo heesto mana jiro dembi kale loo heesto lagu soo eedeeyay
maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo dhuuxaysa nuxurka dacwada kana baaraandegaysa eedda mugga weyn ee lagu soo hoogay eedaysanayaashan waxay dib u mudaysay mar kale dacwadda loo haysto eedaysanayaasha si loo helo caddaymo dheeriya 24kii bishii shanaad ayaa mar saddexaad la isugu soo laabtay maxkamadaynta shabakadda weerarka hawada waxaana maalinkaasi loo horkeenay maxkamadda dhaqdhaqaaqa CCTV-ga iyadoo kooxdii ku howlanayd baarista kiiska Najid si faahfaahsan ugu sharaxday maxkamadda iyo dadweynihii ka soo qayb galay dacwadda sida ay wax ugu dhaceen gudaha airportiga koor qaraxa iyo shaqada ay qabteen Cabdiweli iyo Xasan Cadde waxaa sidoo kale halkaasi su'aalo ku weydiiyey saraakiishii baaray kiiskan abukaatayaashii u doodaya eedaysanayaashan oo tiradoodu gaaraysa 14 abukaate intii uu socday dhageysiga dacwadan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida u yeertay Hakan Aydin oo ah madaxa amniga shirkadda Faafore ee ka howlgasha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isagoo wax laga weydiiyay aqoonta dadka ku shaqeynaya iskaanada airportiga Hakan ayaa isku difaacay inay tababar ku filan siiyaan shaqaalahooda inta aysan u dhiibin shaqada mashiinka isagoo maxkamadda hor keenay shahaadooyin ay siiyeen shaqaalahooda oo ku saabsan aqoonta ay u lahaayeen shaqada loo dhiibayay Hakan ayaa ku dooday shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda Faafore inay dhamaantood soo maraan hubinta xagga amniga ee hay'adaha ammaanka dawladda Soomaaliya ugu dambeyntii 30kii bishan shanaad ee sanadkan 2016 ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya go'aan kama dambaysa ka gaareen dacwadda loo xiriirta qaraxii Daalo waxaana go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ujeedo xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd 24kii bishii shanaad 2016 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kala ah 1 Cabdiweli Maxamuud Macow 49 jir ah ina Faadumo Xaaji Nuur ku dhashay Xamar kaas oo lagu soo eedeeyay in asagoo madax ka ahaa amniga hay'adda duulista iyo saadaasha hawada ee Aadan Cadde Airport uu kowdii bishii labaad 2016 geliyay airportka laptop qarax lagu soo xiray una dhiibay ismidaamiye Cabdullaahi Cabdisalaam Boorle asagoo u diyaariyay in uu saaro Turkish Airways oo maalintaas lahayd duulimaadka Muqdisho Istanbul si uu isugu qarxiyo balse ay baaqatay maalinkaasi diyaaradda Turkish sidoo kale labadii bishii labaad 2016 wuxuu mar kale soo geliyay gudaha airportka laptopkii qaraxa ahaa una fududeeyay ismidaamiye Cabdullaahi Cabdisalaam Boorle inuu la raaco diyaaradda D3 159 oo lahayd duulimaadka Muqdisho iyo Djibouti oo ay saarnaayeen rakaab 84 qofood ah taasoo keentay inuu isku dhex qarxiyo ismidaamiye Cabdullaahi Cabdisalaam Boorle xilli ay maraysay hawada sare ee degmada Balcad waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyay Cabdiweli inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab 2 Carays Xaashi Cabdi ina Sareedo Maxamuud Maxamed oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab una ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda Daalo Airline oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa maxkamaddu markay aragtay eedii xeeralinta ciidamada qalabka sida oo ku xusneed qodobada 221 297 iyo 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamaddu markay ay tixraacday dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xiran airportka Aadan Cadde oo uu ka dhex muuqday Cabdiweli Maxamuud Macow oo wata laptop qaraxa kuna jira gudaha airportka Aadan Cadde maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta ah naqshada lagu qorsheeyay fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga Carays 2 dukumiintiyada loo soo gudbiyay maxkamadda oo isugu jira cadeemo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqeynayay iskaanka maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedeysanayaasha maxkamadda waxaa u cadaatay in
cabdiweli maxamuud macow labo carees xaashi cabdi oo maqano ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'in sidoo kale abshir maxamed macalin axmed safiyo cabdulaahi xasan cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah liibaan maxamed yalaxow cumar muxudiin xuseen qoorey maxamed cabdi cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah bashiir cabdulaahi afrax cali nuur salaad diiriye aadan daahir shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah maxkamaddu waxay xabsiga ka sii daysay eedaysanayaasha kale ah cumar macalin calasow cali maxamuud cabdiraxmaan cabdulaahi cabduqaadir abuukar ismaaciil maxamed xirsi faarax khaliif cali maxamed haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxay kiiska qaraxa daala galisay waqti badan hubin iyadoo ugu yaraan 3 mar dhageysatay dooda dacwadan si loo gaaro hufnaan cadaaladeed waxaana go'aanka maxkamadda uu noqday mid ay si weyn u soo dhaweeyaan dadka Soomaaliyeed iyadoo weerarkii fashilmay ee diyaaradda daalana uu ahaa mid Soomaali oo dhan saameeyay lana doonayo in lagu xiro garoonka Muqdisho wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq ayaa guul ku tilmaamay sida kiiskan ay ugu guuleysteen baaristiisa hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya loona geeyay cadaalad arrintaas waxaa ka soo baxay kulay report weyn waa laga soo saaray xeer ilaaliyaha aniga shalay buu ugu soo wareejiyay reportkii aniga iyo wasiirka dawladda hawada ama aviationka ayaa loo baahan yahay marka inaan warqad ku xirno oo aan mar dhow soo bandhigno wixii soo baxay qaladaad badan waa soo baxeen dhinaca amniga airportka ah tallaabooyin fiican oo aan qaladaadkaas ku saxaynana waa qaadnay waxaan rajaynaynaa reportkaas waxaan ugu talagalnay in yacni kalsooni shacabka Soomaaliyeed aan gelino kow inaan kalsooni gelino oo dadka ka imaanayo dibadda ama diyaaradaha ahaadaano airlineska kale ta imaanayo inaan kalsooni gelino si ay duulimaadyadooda dib u bilaabaan marka dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa wixii ka soo baxay reportkaas isagoo qoraal ah ayaan meediyahan waa la hadli doonaa waana soo bandhigi doonaa marka waa dhammaystiran yahay dad badanna waa loo xirxiray kulley waa la socotaan gaabis jiray meelo badan oo ay ka jireen maxaa la yiraahdaa habacsanaan badanna waa la tilmaamay oo iyadana u baahan in la saxo waana saxnay waxaan mid ugu weyn oo sameynayna waxay ahayd inaan hal qof oo coordinationkii amniga ama isku xirkii iyo isku dabaridkii amniga airportka inaan hal qof mas'uuliyadaas aan siino halkaas qofna ay yacni la shaqeeyaan hay-adaha kaleeto oo meesha amniga ay ka wada shaqeeya airportka inay halkaas qof ay u report gareeyaan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa noqotay garsoor ay shacabku mahdiyeen dambiilayaashuna ka baqaan in la horgeeyo iyadoo lagu ammaanay inay ku sifowday cadaalad iyo hufnaan taasoo keentay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku abaalmariyo dalacaad min hal darajo ah labada guddoomiye ee hogaamiye maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo loogu xiray darajooyinka uu dalacsiiyey madaxweynuhu xafladuu soo agaasimay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen talisyada ciidamada qalabka sida ayaa taasoo lagu qabtay akadeemiyadda jenaraal kaahiye iyadoo talisyada ciidamadan ay si wada jira ugu xireen darajada guddoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaana ka hadlay xafladaasi taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xaamud waxaa maanta sharaf weyn noo ah haddaynu nahay ciidamada qalabka sida kala duwan oo runtii hoos imaada maxkamadda ciidamada qalabka sida in maanta aan ku soo wada dhoweyno saraakiisha madaxda ka ah maxkamadda ciidamada qalabka sida kulliyadda jenaraal kaahiye runtii kulliyaddaano loogu bartay in ay soo saarto rag difaaci kara waddanka oo uu ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud meeshii lagu doortay ay tahay xildhibaanada sidaasoo kale xildhibaanada 275 hadda maanta hogaaminaya dalka ayagana meeshaana lagu doortay xarunta maanta aan joogno waxaa maanta sharaf gaar ah u tahay sareeyo guuto liibaan cali yarow iyo gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayagana maanta inay meesha ay ku qaataan waxaan rabaa inaan halkaan ugu faa'iideysto anigoo u mahad celinaya madaxa amniga wasaaradda gaashaandhigga sareeyo guuto maxamed xaashi oo asaga wakiilka ah taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo safar dibadda ugu maqan iyo taliye xigeenka ciidanka asluubta iyo taliye xigeenka nabad sugidda oo inta dibadda ku maqan inaan aniga aan maanta mathilo taliyayaasha asxaabtayda ahaa ayagana ay ila soo dhaweeyaan oo darajadeena aan u xirno marka waxaan rajaynaynaa inaysan darajo booliis noqonin darajada waa darajada ciidamada qalabka sida waaye runtii way naga wada dhaxaysaa saasay maanta ay ku qaateen waxaan rabaa inaan halkaan aan weliba ugu xuso waxaa iyadana maanta sharaf noo ah in ay ku soo biireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed tirada halkaas fadhiso aad arkaysaan oo ka baxay jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba anigu kalmad kale halkaan igama banaano waxaan rabaa inaan waxaan ku hadlayaa magaca taliyayaasha ciidanka oo runtii iyo wakiisha anagoo ku balansaneen arrintan laakiin howlo qaran awooda dalka dibadda uga maqan maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha aadan cadde jenaraal cabdi ashkir ayaa tan iyo markii loo idmay maamulka garoonkaasi waxa uu sheegay inuu wax badan ka bedelay habka ammaan ee garoonka diyaaradaha garoonku waxyaabo kala duwan baa amniga laga sameeyey inkastoo markii horeba amniga laga shaqayn jiro garoonka amnigiisu uusan xumayn haddana waxyaabo lagu dardaray baa jira waxaa ka mid a marka ugu horeysa waxaa la fariisiyey guddiga liyaa guddiga ammaanka garoonka oo iskugu jira qeybaha kala duwan ee garoonka ka howlgala ilaa UN ilaa qeybaha amniga ee kala duwan immigration booliiska nabad sugidda shirkadda garoonka terminalkiisa hadda gacanta ku hayso Favori la yiraahdo muxuu ahaaye Skama civil aviationka guddi la yiraahdo guddiga ammaanka garoonka oo fariista shir toddobaadle ah baa jira haddii loo baahdana waa laga soo hormariyo ay wax yimaadaan guddigaas waxay ka arrimiyaan ama ka taliyaan hab u dhaqanka ama habka uu shaqeynayo garoonka kan ugu haboon fikrada la isku darsadaa fikrada markii la isku darsaday haday tahay dhanka maamulka iyo haday tahay dhanka amniga fikrada ay isku darsadaan baa la fuliyaa maxaa ka fulay maxaana ka fulin oo waa talo dadka garoonka ka wada shaqeeya ama qeybaha garoonka uu ka kooban yahay ay isweydaarsadaan wey waxaa kale oo aan wax ka bedelay waxaa la joojiyey oo gebi ahaanba la mamnuucay hubkii lala soo geli jiray garoonka irdaha lagala soo galo garoonka arrintaas waxaan iska kaashano gacan weyn naga siiyey ciidanka amisomta iyo ciidanka kaleeto amniga ka shaqeeya oo garoonka amnigiisa gacanta ku hay sida booliska iyo nabad sugidda oo kaleeto hubka waxaa lagu soo reebaa irdaha fogfog oo laga soo galayo garoonka yaa lasoo dhigaa hawshaasi waxaa hirgelinteeda qeybta ugu horeysa ka qaatay oo ka kooba ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda ciidanka madaxtooyada ciidanka golaha wasiirada xildhibaanada la socda taliyaasha ciidanka halkaasaa lagu soo reebaa qofku wuxuu soo gelayaa staafkiisa gaarka iyo gaarigiisa gaarka ay soo wato wuu ka adeeganayaa haddii
ay dhacdo in loo baahdo qoryana ciidanka amniga ama 2 ama 3 gaari baa lala hadlaa waxaa la sheegaa qoriga noociisa iyo dadka wata waa la soo daayaa marka taas waa ku guuleysanay oo hubkii garoonka dhexdiisa waa laga daayay waxaa kaloo la joojiyey dadka iska soo dhaweynayay oo garoonka waxaa soo geli kara dadka dhoofaya ama dadka ka shaqeeya dad kale waa la reebaa oo meel lagu reebay leeyihin intaas haddii la sameeyey oo ay saas jirto waxaa kale oo amniga qayb ka ah oo lagu soo koriyey garoonka ilaa intii shil ka dhacay kadib xayawaanaadkan aad wax u oriyo oo eyga ayaa lagu soo koriyey oo tababaro fiican qaba markii iskaanada la mariyo oo wax walba la mariyo isaguna tababaro gaar oo waxyaabaha qaraxyada laga sameeyo oo kale ku tababaran yahay inkastoo tababaradooda ay kala duwan yihiin kuwaasna waa lagu soo kordhiyey garoonka jenaraal cabdi ashkir waxa uu dhinaca kale sheegay inuu garoonku sugayo inuu dhowaan soo gaaraan duulimaadyo caalami oo la mid ah kuwa Turkish Airlines guud ahaan barnaamijkeennii weerarkii hawada ee D3 xariijin 159 garsoorka ciidamada qalabka sida Soomaaliya waa naga intaa intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno aniga Maxamed Cabdi Foornabo waxaan idin leenahay nabadiino محكمة ciidamada qalabka sida shacabku way mahadiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida shacabku way